sida daawadayaal la wada socoteen habeennimadii caawa oo hadda aynu joogno qiyaastii 3 habeenimo iyo dheeraad dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo waliba gobolka Maroodijeex waxa ay si weyn uga dhursugayeen natiijada ka soo bixi doonta degmo doorashada caasimadda Hargeysa iyo waliba 20 kursi ee gobolka Maroodijeex ku matali doona golaha wakiilada xasan dhuxul laab saalax waxa uu ka mid noqday 20 kaasi kursi xildhibaanada ku fadhiisan doona mid ka mid ah hadda ayaanu la kulanay waxaan wax ka weydiin doonaa bal dareenkiisa xasan soo dhow ilaahay baa kaligii mahad leh waan dhowahay sidoo qof kastoo inaga midi caawa natiijada doorashada uga dhursugay ayay geeriduna u sugaysaa sidaas la mid ah ayaa qof kastoo la doortay mas'uuliyad iyo xilku u sugaya waxaan weydiisanayaa ilaahay inuu astro waxaan u mahad celinayaa ummadda reer Somaliland kulli xildhibaanadii guuleystay iyo kuwii guuldareystayba waxa ka muhiimsan inuu qarankii guuleystay waan ku faraxsanahay dadkan la faraxsanahay aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaya saddexda xisbi qaran komishanka doorashooyinka qaranka oo si nafur loo shaqeeyay madaxweynaha qaranka iyo qof kastoo ii codeeyay iyo mid igu codeeyay inaan ka mid noqdo golaha wakiiladu waxay tusaale u tahay dhalinyarada inkastoo aanan imika dhalinyarada isku qabin haddana golahani waa golaha ay dhalinyaradu guuleysatay waa golo dimuqraadiyaddu ay guuleysatay waa golo waxaynu doonaynaa ay guuleysatay geeska Somaliland waa meesha kaliya si xor looga dareeray doorasho waa tusaale iyo shamax ka dhaxifaya Afrika oo dhan horena waan u sheegayo waxaan doonayo waxa iga weyn waxa aan ummadayda la doonayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xasan oo markale haddaan kugu celiyo taageerayaal tiro badan oo hadda codka aad ku timid golaha ku siiyay baa jira safaf dhaadheer ay u galan sidaad u soo bixleed iyaga maxaa leedahay mar kale qof kastoo safii galay ama qof xildhibaano u galay oo dhididay oo daalay oo tabcay waan mahadnaqayaa waxaan aaminsanahay qofku codkiisii inuu ikraamiyay i weyneeyay i muuneeyay oo i tuhmay intaa igu tuhmay ilaahay ugu astroorta ujeeddo ka weyn ummadda wax u hagaagna halka uma tagayo waxaan jecelahay inaan codka shacabkayga ku hadli doono waxba ka hor dhici maayo wixii kale